رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. دعاء من خاف qofkii ka cabsada wuxuu ku duceysan lahaa dulma sultaani, sultaanka dulmigiisa. madaxweynayaashii wayna dulmiyeen maanta, dhib ma ahee wanaag ma noo sameeyaan, waa laga baxsan la'yahay, diin alla lagama sheegi karo, meel laga raaci karo ma laha. madaxdii islaamku waxay noqdeen kuwa dulmi idab darro ku socda, masaajideeda ka istaagi karin. ilaahayaa yidhi ma dhihi kartid, rasuulkaa yidhi ma dhihi kartid. 10 iyo 100 magacaa laguu bixina, mintidaa lagugu magacaaba, qof madax adag, maca daalika u shaqeeya dad waxba shaqo aan markaa isku lahayn. maca daalika dulmiga haddaan ka cabsana madaxweyneyaalka iyo salaatiinta waxaan dhihi lahayn waay allaahuma raba asamaawaat. dacooyinka aad bay u cajiibadeen, mid kasta allaahuma ayay ka bilaabanaysaa, ma jirta mid ka bilaabanayso waxyaabo kale. sidaa darteed mid sheekh hebel oo ka bilaabanaysa male ducooyinka, ma ujeedaa? ducaau man khaaf, qofkii ka cabsada ducadeeda waayo dulma sultaan, sultaanka dulmigiisa. ninka madaxweynee dadka hogaamiya haddii dulmi iyo waxyaabo kale uu la yimaado wixii looga ducaysan lahaa allaahuma raba asamaawaati asabci wa raba alcarshi alcadiimi. allah samaawaadka 7 rabbi u ahow, carshiga cadiimka u ahow. kun lii jaaran, jaar iiga noqo, min fulaan ibni fulaani, jaar kun lii ahow jaaran mid iga koriya, jaaran mid jaar iiga ah, daris min fulaan ibni fulaani iyo wa axsaabihi, xisbiyooyinkiisa waa askartiisoo min khalaa'iqika khalqigaaga ka mida, an yafruda calaya axad, inuu axad oo minhum ayay ka mida igu soo xadgudbo, aw yataba ama inuu marka igu gardarsadoolo. caza jaaruka, dariskaanimadaada ayaa cizi lahaatay, wajal waxaa weynaaday hanaa'uka ammaantaada, walaa ilaaha ilaa anta, ilaahaan adi ahayna ma jira. waxaad kaloo dhahaysaa allaahu akbar, allaahu acazu min khalqihi, allaahu akbaru, ilaahay ayaa weyn, allaahu ilaahay ayaa acazu ka cizi badan oo ka weyn oo ka sarreeya min khalqihi, khalqigiisa jamiican dhammaantoodba. allaahu ilaahay ayaa acazu ka cizi badan oo ka weyn mima akhaafu, waxaan ka cabsanaya oo wa axdaru aan ka digtoonahay. acuudu billaahi, ilaahay ayaan magan galay, alladii allihii laa ilaaha ilaa huwa, asaga meehee mid kale uusan jirin, almumsiki asamaawaati, ka qabtay samaawaadka asabci ee 7 ah, ay yaqacna cala alardi, inay dhulka ku soo dhacaan, ilaa biidnihi, asaga idinkiisa maahana. min shari cabdika fulaani, addoonkaagii hebel ahaa shartiisa ayaan ilaahow kaa magan galay, iyo wa junuudihi, ciidankiisii, wa atbaacihi, raacayaalkiisii, wa ashyaacihi, wixii markaa shiicyaalkiisa iyo guubaabayaashiisa markaa ah. ashyaac waa ashbaahdiisa oo min aljinni waalinsi, jinni iyo insi ah. allaahuma ilaahayow kun lii jaaran, deris ii ahow, min sharihim, shartooda iga kori. jalla hanaa'uka, ammaantaada ayaa kor noqotay, wacaza jaaruka, derisnimadaada ayaa cizi iyo qayb wanaagsan naqaatay, wa tabaarak ismuka, magacaaga ayaa keyrkiisa batay, walaa ilaaha hayruka, ilaah kayrkaada ahna markaa ma jira. adducaau cala alcaduwi, cadowga korkiisa wixii loogaga ducaysta jihaad ayaa la rabaa in la galo. cadowgii waa yimideen, waxaan dhahaynaa allaahumma munzila alkitaabi, kitaabka allaha soo dejiyey oo sariica alxisaabi, xisaabkiisu degdegayow. ahzimi alaxzaaba, jameecooyinkan allow jeri, allaahuma ahzimhum, ilaahayow jeri oo wazalzilhum, ruux ayagoo dhanba dhulka ay ku taagan yihiin, ilaahayow zilzaal ku abuur. maa yaquulu, wuxuu dhihi lahaa man khaafa qowman, qofkii qoom ka cabsada. qoom ayaad ka cabsatay, waxaad dhihi lahayd allaahuma akfiniihim, ilaahow iiga kaafi kuwaan oo iigaga celi bimaa shi'ta saa doonto.
ilaahayo waa kuwaana way soo dhow yihiin qoomkii waa igu soo dhowaadeen dhib inay i gaarsiiyaan ayaan ka cabsi qabaa ama sawaaba ku wadaan oo dhib iyo mashaakil ayay rabaan inay ku gaarsiiyaan allaahumma akfiniihim bimaa shi'ta ilaahayow saa doonta iiga kaafi dheh ducaa'u man asaabahu shakun qofkii asiiba shaki filiimaani iimaanka dhexdiisa ducaduu ku ducaysan lahaa mararka gobol ka mida adoo iimaankaagu taam yahay waswaasku gelaayo waayahee ilaahay yaa abuuraa qalbigaaga soo gelaaya xaaladaan see yihiin maxaa adduunkan loo abuuray haddii la dhinto amaanba la soo baxaynin iyo iimaankaaga wax dhaabacayaad mararka gobol ka mida iskula sheekaysataa axadka markuu meeshaa gaara yastaciidu billaahi ilaahay ayuu magangelayaa yantahi camaa shakka fiihi wixii shakiga ka gala xaggiisa ayuu ka joogsanayaa yaquul wuxuu dhahayaa aamantu billaahi ilaahay ayaan aaminay iyo wa rusulihi rusushiisa yaqra'u wuxuu akhrinayaa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa huwa alwalu waalaakhiru waalظaahiru waalbaatinu wahuwa bikulli shayin caliimun huwa ilaahay alwalu alla jiri jiray waayo walaakhiru alla aakhir oo dambeeyo waayo waxba aan ka dambayn waalظaahiru alla daahir ah oo muuqdo waayo waalbaatinu alla qarsoon oon la arkin waayo wahuwa bikulli shayin caliim shay kastaa midku cilmi badan waayo ducaa'u qadaa'i dayn daynta gudideeda ducadii looga ducaysta waayo isticsaab bay kugu noqotoo deyntii waa kugu cuslaatay waxaad dhahaysaa allaahuma akfinii bixalaalika ilaahayow xalaashaada iigaga kaafi can xaraamika xaraamtaada wa aqninii iga deeq bifadlika fadligaagana waxaad iigaga ka haniyaysaa caman siwaaka wixii adi kaa soo harayna igaga deeq ilaahayow allaahuma akfinii ilaahayow iga kaafi bixalaalika can xaraamika oo xalaasha aad isiisa waxaan uga kaaftooma xaaraamtaada iiga dhig wa aqninii waxaad iga taajirisaa ood iga kaafisaa bifadlika fadligaaga caman siwaaka wixii adi kaa soo haray shaksi adi kaa soo haray bayaanan u baahanin waaye allaahuma innii acuudu bikaad dhahaysaa haddana ilaahayow adiga ayaan kaa magan galay min alhammi murugta waalxasani tiiraayada waalcajzi cajziga waalkasali wahsiga waalbukhli bakhiiltinimada waaljubani fulaynimada iyo wadalaci dayni daynta mideeda culus iyo wakhalabati arijaali ragga khalabadooda iyo guulayshadooda raggu inay kaa guulaystaan ma fiicna si kasta iyo xaalad walbaba ay ahaata sidaa darteed allaahuma innii acuudu bika ilaahow adigaan kaa magan galay min alhammi murug waalxasani waa murugta adag cajiska iyo kasliga waa isku macno dhow yihiin hamiga iyo xasankana waa sidoo kale waa diintoo laga wahsado waa qur'aankoo laga caajiso waa khayrkoo laga wahsado waalbukhli bakhiiltinimo waa inaad ka bakhiishaa nebiga salligiisa waa inaad ka bakhiishaa xaqa waa inaad xoolahaaga caqligaaga awooddaada cilmigaaga aad ka bakhiisho taasaa loola jeedaa waaljubani fulaynimo inaad cadowga gaaladaa ka fulayowdo iyo iska celitaankooda wadalaci dayni iyo wakhalabati arijaali daynta ayaan kaa magan galay iyo rijaasha khalabadooda ducaa'u alwaswasatu fi asalaati waalkhiraa'a marka gobol ka mid ah adigoo qiraa'adii akhrinaya ama salaada gudaheedaad ku waswaasaysaa waxaad uga hortegi lahayd waayo ileen alwiqaaya khayrun min alcilaaj ka hortaga ayaa ka fadli iyo khayr badan isdaaweynta hadhow intaysan dhicin ka hortag acuudu billaahi min ashaytaani arajiim dheh waxaan ka magan galay ilaahay shaytaanka rajiimkee la fogeeyey oo la dhaqaajiyey oo la durjiyey waa tuf calaa yasaarika bidixdaada alaaa 3 mar dhinaca bidixdaa u tuf waa tufitaan bilaa riiq aan candhuuf lahayn oo afuuf keligiis markaa ah saasaa 3 mar dhahaysaa haddii shaytaanka salaada uu kugu dhex dhibo duca waaye man istacsaba calayhi amrun qofkii amarku cuslaado arrin baa kuu cuslaato waxbaa kuu toosi waaye tallaabada iyo jihadaad qaadaba waa soo xirantaa dad fara badan oo xaaladoodu sidaa ay tahay ayaa markaa jirta laakiin nasiib xumo dadka wax faaliyay u tagaan nasiib xumo saaxiriintay u tagaan nasiib xumo waxyaabo kaley sameeyaan rasuulku wuxuu kuu tilmaamayaa arrin qiimo badan oo dhibaato aan lahayn ajirna aad ku helayso ilaahayna arrinta uu kuu furfuraya subxaana wa tacaala allaahumma yaa allah waayo macnaheeda ilaahayow laa sahla wax sahal ah ma jira ilaa maa jacaltahu sahlan
waxaad adiga sahasho ood fududaysa maahane wa anta tajcalu alxasna ilaahayow shayga murugta iyo dhibkii ciriiriga badan ayaad ka dhigtaa idaa shi'ta sahlan haddaad doonto mid fudud saasuu alla kugu fududaynayaa subxaanahu wa tacaala. tuug asaga oo tilmaan waxaan inay culays iyo dhibaato yihiin asagoon moogeyn. sidaa darteed dheh allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan ilaahayow waxaad sahal ka dhigta mee wax fududaanba jirinba. sixiroolaan wax fududayn karin, kaahin baan fududayn karin, islaam wax fiirisaan fududayn karin, tii gaxwada fiirisaan fududayn karin, tii turubka rugtaa fududayn karin ilaa maa jacaltahu sahlan waxaad adi sahal ka dhigta maahane. wa anta tajcalu alxasna idaa shi'ta sahlan sidaa ayaad ka dhigtaa. maa yaquulu wayafcalu wuxuu dhihi lahaa samaynan lahaa man adnaba demban qofkii dembi galaa. bini aadamka kama maqna inuu dembi sameeyo shiiqooda iyo midkooda ugu weyn, midkooda caamigii midkooda caalimkaa waxaan dembi dhacayn aan ka dhacayn ayaan jirin. bini aadam dhammaantiis khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun inta toobakeenka badan ayaa u khayr badan inta gafta buu dhahay ila subxaana wa tacaala nebigiisa. sidaa darteed qofkii dembi gala wixii uu samayn lahaa dhihina lahaa. maa min cabdin addoon ma jira yundibu dembaabaya demban dembi oo fa yuxsinu aطuhuura waysqaadka wanaajinaya uma yaquumu istaagaya oo fa yusallii rakcatayni laba rakcadoo tukanaya uma yastakfiru allaha ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ilaa gafara allahu lahu ilaahay waa u dhaafaa subxaana wa tacaala. dembi dhaafna weydii waa waxaad dhihi lahayd. wayse qaado laba rakacadoodta tuka waa waxaad samayn lahayd. intii hadduu la yimaado axadka ilaahay dembigiisa waa cafina subxaana wa tacaala. ducaau meeshaana duca waayo qadar shaytaani shaydaanka burintiisa lagula ducaystiyey iyo wa wasaawisihi waswaasintiisaba. waxaad dhahaysaa ama loogu sameeyaa alisticaadatu billaahi minhu in ilaahay shaydaanka laga magan galo. kow alaadaanu aadaanka sidaa darteed ayaa ilmaha marka la dhala waxaa loo sunneeyaa dhegta midigta in looga aadaamo. sababto waxay tahay canug la dhalaayo mijra buu dhahay nebiga ilaa kelida ayaa shaydaan ka dura. ma arkin miya canuga asagoo saarqa oo qaylinaya ayuu ka soo baxaa caloosha hooyadiis. shaydaan ayaa kelida ka dura buu dhahay nebiga ilaa maryamo iyo wiilkii ay dhashay maahane waa nebi ciise calayhi salaam. ayagana waxay ku badbaadeen. hooyadeed ayaa tiri innii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaani arajiim. khayrkaas iyo wanaaggaasay ku fakadeen. idan aadaanka waa qiimo badan yahay. awlaadda marka la dhalo waxa ugu horeeya oo dhegahooda ku dhaca waa inuu aadaanka noqdaa si uu shaydaanku markaa uga ordo. markuu soo bixi rabaa malmalkiisa iyo maradii lugta loogu xiri lahaa iyo birtii maarta u diyaarsan. maxaa aadaan la sameeyaa maanta? waa dhibaato dhib badan. alaadaan aladkaaru waa dikri ilaahay iyo wa qiraa'atu lqur'aani aqrinta qur'aanka. waxaasoo dhan shaydaanka lagu raacdeeyaa. adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaahu qofku hadduu ku dhaco wax uusan raalli ka ahayn ama uusan jeclayn aw amase quliba calaa amrihi amarkiisa looga guulaysto wuxuu dhihi lahaa waxbaa kaa halaabay, arrin baa si kaa noqotay. maxaad dhahaysaa? ha qaylinin, gacmaha ha isku dhufanin, wax kale ha samayn, laakiin qadarullaahi wamaa shaaa facala dheh. ilaahayaa arrintan qadaray, wuxuu doonana waa sameeya subxaanahu wa tacaala. arrintiisaa rabtay u noqon weysay, arrintaadii baa lagaaga guulaystay, arrintii baa kugu cuslaatay. qadarullah ilaahayaa sidaa qadaray waayo wamaa shaaa facala. ileen ilaahay maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun. wuxuu raba waa ahaadaan, wuxuu rabana wuxuusan rabinna ma ahaadaan subxaana wa tacaala. tahni'atu lmawluudi lahu axadka wax loo dhala sidii loogu tahniyeyn lahaa iyo wa jawaabuhu jawaabtuu bixin lahaa. canugaa loo dhalay tahniyad ayaana laga rabaa, asagana inuu noo soo jawaabo ayaa laga rabaa. in laisku tahniyeeyo ayaa fiican. baaraka allaahu laka fi lmawhuubi lakaad dhahaysaa wixii laguu hibeeyey ilaahay ha kuu barakeeyo. wa shakarta alwaahiba wa balaqa ashuddahu waxaad ugu shukrisaa waahibka iyo qofkii kuu hibeeyey waa ilaahay. wa gaara midkan lagu siiyey adeegiisa. wa rusiqta birahu hana lagugu arsuqa birigiisii baari ahaashadiisa. wayaruddu calayhi waa jawaabayaa asagana almuhanna'u qofkii u tahniyeeyey ayuu u jawaabaa. fayaquul wuxuu dhahayaa baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajazaaka allaahu khayran warasaqaka allaahu midlahu waajzala hawaabaka.
intaasuu ugu jawaabayaa ilaahay adigana ha ku barakeeya wabaaraka calayka dushaada allah barakeeya wajazaaka allaahu khayran khayr ilaahay ha kuugu abaalguda saantaad ii soo qaaday iyo hibayntaad iigu tahniyeysay warasaqaka allaahu midlahu midilkiisoo kale allah kugu arsuqo owlaad tayibiina oo fiican oo baariyaala adigana allah ku siiyo waajzala hawaabaka abaalkaagana allah wanaajiyo abaalkaagana ilaahay ha wanaajiye xaasidnimay isku beddeshay maanta qofkiiba nimco iyo wanaag hela asagoo la ogoleen oo loo ogoleen oo inay ka baaba'da la rabaa loo taga maca daalika aad iyo aad ayaa arrintaa dhibaato weyn ay u tahay ku farax qofka muslimkaa khayrka uu helo dhibka ku dhacana markaa ka nax maa yucawadu bihi alawlaad awlaadda waxa ilaahay lagu magangeliyey subxaana wa tacaala awlaaddii aan dhalnaana laka rabaa inay xisoodaan ama ay wanaagsanaadaan ama isha iyo shaydaanka iyo jinniga iyo dhibkoo dhan laga ilaaliyo maxaan samaynaynaa kaana rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam yucawidu alxasana waalxuseyn xasan iyo xuseen oo ilmo awoowo uu u yahay ahoo gabarhtiisa faadumo ay dhashay ayuu magangelin jiray ilaahay wuxuu dhihi jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi waxaan idin magangelinayaa kelimooyinkii ilaahay attaamati ee dhammaystirnaa min kulli shaytaanin shaytaan dhammaantiis ayaan idinka magangelinayaa iyo wahaamatin haamada haama cudurkana waa la yidhaahdaa dhib kastana waa la dhahaa wa min kulli caynin laamatin il kasta oo dagaal badan oo xaasidnimo badan oo dadka cayuumanaaska keentana ilaahayaan idinka magangelina saasaa markaa owlaadda la dhahaa adigoo lugta bir garaangara oo maar ugu xirin sidaa keliya dheh ka tag khayr iyo wanaagay u noqonaysaa ilaahayaana badbaadinaya subxaana wa tacaala ilmaha sidaasaa la dhahaa uciidukumaa bikalimaati illaahi attaamati min kulli shayطaanin wahaamatin wa min kulli caynin laamatin adducaa'un waa duco lilmariidi qofka mariidka ah ee jiran fii ciyaadatihi booqashadiisa loogu duceeyo qofka mariidka ah ee jiran ayaad u tagtay maxaad dhahaysaa sideena ugu ducaynaysaa maanta marka loo tago waxaa la leeyahay arrintaas ma isticmaashay kan ma cabtay kan ma tilmaantay islaan xagga laga sheegi jiro xaafadaha deganaa cudurkii ii sheegi jirtee ma loo tegey ma laguu faaliyey waxaasoo dhan mamnuuc waay adducaa'u lilmariidi fii ciyaadatihi ciyaadada inta lagu dhex jira waa booqashada iyo salaantee laa ba'sa duhuuru in shaa allah dheh laa ba'sa dhib ma ahaanin baas ma ku saarna tahuurun dembi dhaaf ayuu kuu yahay midkaan in shaa allah saasaa markaa loo dhahaa nin acraabiya ayaa nebiga u yimidaa la yidhi aad qandha u haysa rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa tuhuuru in shaa allah acraabigii wuxuu dhahay la ma ahanuu dhahay balse waa xuma qandho karkarinaysa oo dhib badan oo mashaakil leh oo odayga u jiidaysa qabriga ilaahay ha kaaga dhiga buu dhahay nebiga ka gadaal waa dhintay laa ba'sa tuhuuru in shaa allah saasaa markaa loo dhahaa waxaad kaloo dhahaysaa as'alu allaha alcadiima رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات 7 مرة أسأل الله إلهي بسؤال يا إلهي العظيم وينا وحك وين أسنجرين رب العرش العظيم عرش عظيم كربي ساعة أن يشفيك إنه مركا كشافيه 7 مرات 7 مرساس أقول دعي كان صوتك فضل عيادة المريض بوق الشرع ذاتك جرى الله صوت بوغضه فضلك أي ليذهي قال صلى الله عليه وسلم رسولك وحو يري إذا عاد الرجل رجلك هدو بغض وانك قبرنا وعلمد أخاه المسلمة وللكس مسلمة مشى وحو كسعدا في خرافة الجنة جنة خرافة ديدا قوس الشرم مرحة جنة كل سعدا حتى يجلسا إلا أو كفردستو فإذا جلس مركو فردستو أو نيكي أصوب بغضي أما قفكو صوب بغضي إجرنا وأكفردستو أما اسبتالكو أغتغي أما قرق واسكو ميدي غمرته الرحمة نحرستا بصوت بوشا فإن كان غدوة هذي صبحتهي صلى عليه وحأد عيني سقفك وحصوب بغضي 70,000 ملك تضباطا كن أو ملك حتى يمسي إلا أوك قلبيستو وإن كان مساء هذي قلبتهي صلى عليه 70,000 ملك تضباطا كن أو ملك أد عيني حتى يصبح إلا أوك صبحيستو دعاء المريض ninka mariidkaa ducada loogu duceeye alladii mariidkaasoo ya'sa min xayaatihi
xayaatadiisa laga quustay. ninkan waa nin aad iyo aad u dhib badan, maca daalika wuxuu saaran yahay xaaladii ugu dambaysay, xayaatadiisaa laga quustay. allahuma macnaha ducaau lmariid, mariidka ducadiisa dheh oo isugu duceeyey alladii mariidkaasoo ya-isa min xayaatihi, noloshiisa ka quustay. asagaa isugu ducaynaya. haddaad is-ogaato inaad sii socoto dheh allahuma kfir lii, ilaahu ii dembi dhaaf, warxamnii, ii naxariiso, waalxiqnii, ii haleelsii, oo waxaad ii waafajisaa birafiiqi alaclaa, rafiiqa sare. rafiiqa sare markaa igey. sidaa ayuu ku ducaysanaa qofka. ma la xasuusta maanta allahuma kfir lii booskeeda ilaahayow xoolahaygii waayo, warxamnii booskeeda geelaygii aaway waayo, waalxiqnii birafiiqi laclaa maba jirtaba. sidaa darteed waxaa la rabaa qofka bacdamaa uu ilaahay agtiisa u sii socdo, noloshii adduunkana uu ka quustay, inuu ducadaa fiican ugu ducaysto, waayo qabriga dembi dhaaf iyo naxariis ayaa ku anfacaya. jacala nebiy, nebigu wuxuu yeelay sala allahu calayhi wasalam, ama uu guda galay dheh cinda mowtihi, geeridiisa agteeda, yudkhilu inuu gelinayo yadayhi gacmihiisa filmaa'i biyaha, oo fa yamsaxu uu ku masaxayo bihimaa labadii gacmood wajhahu, wejigiisa, oo wayaquulu uu dhahayo laa ilaaha ila allahu ina lilmowti lasakaraati. laa ilaaha ila allah, ilaahay alla lagu xaqnimo lagu caabudo oo koonka ka jira ma jira ila allaahu, ilaahay maahana. ina lilmowti, meydka iyo dhimashada la sakaraati, sakaraad ayuu wataa xanuun badan. laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar. ilaahay meehe ilaah kale ma jira, ilaahay ayaa weyn. laa ilaaha ila allaahu waxdahu, laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah, laa ilaaha ila allaahu lahu lmulku walahu alxamdu, laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billahi. sidaana qofku markaa waa dhahaya talqiinu lmuxtadir, qofka muxtadirka ee lagu soo xaadiray wixii loo laqini lahaa. muxtadirka waa qofka marka sakaraadka uu soo gaaro wixii markaa lagu samayn lahaa. yaasiinka aaway ayaa la yidhaahdaa maanta, balse wax haabit ah oo sugan ma aha. waxa anfacaya ma aha yaasiinkoo lagu akriyo, laakiin man kaana aakhiru kalaamihi, kalaamkiisa ugu dambeeya qofkuu noqdo laa ilaaha ila allahu dakhala aljannata, jannada ilaahay ayuu gelayaa. man kaana aakhiru kalaamihi, kalaamkiisa midka ugu dambeeya qofkuu ahaada laa ilaaha ila allahba naftay uga baxdo, dakhala aljannata, jannada ilaahay ayuu gelayaa. sidaa darteed haddaan la yaasiiminin neef baktiyey waaye iyo haddaan la yaasiiminin fadli ma yeesho iyo kulli waa kalaam aan waxba ka jirin waaye. wax sugan oo haabida maaha. axaadiiso daciifa ayaa ku soo arooray qofka marka uu dhimanayo in la yaasiimiyo. nebiga sala allahu calayhi wasalam weligiis kama dhicin, mana la warinin axad saxaabada ka mida oo dhimanayo yaasiin ku akhriyey. khadiija bintu khuwaylad ayaa dhimato xaaskiisa ma yaasiiminin nebiga. sidaa darteed ayaa abi salama uu u soo galay, indhaha ayuu u daboolay sida noo imaan doonta. ducadii hadda aan soo tilmaanay ayuu ku akhriyey, yaasiin kuma akhrinin. adeerkiis abi aalib markuu dhimina, yaa cammi qul laa ilaaha ila allah dheh buu dhahay, iidaa ku anfacayse ma yaasiiminin. marka wax sugan maba ahanba. man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna, jannada ayuu gelaa. yaasiinkii lama saarinaad maqlaysaa wuu dhintay, neef baktiye waay, waa waxaan waxba ka jirin. ducaau man usiiba bimusiibatin, qofkii musiibo ay asiibto wixii uu ku ducaysan lahaa. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. sidaa dheh allaahuma ujurnii, ilaahu iga ajirtii fii musiibatii, wa akhlif lii khayran minhaa, khayrna iigu bedel. musiibadu waxay ahaataba, beertaadii baa gubatay, gurigaagii ayaa gubtay, qof ayaa kaa dhintay, walaalkaa aa dhintay. inna lilah wa inna ilayhi raajicuun. walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wannaqsi min alamwaal waalanfusi waathamaraat. intaasaa laydinku imtixaamaa. wabashir saabiriin, saabiriinta u bishaaray. saabiriin yay yihiin? waa kuwa wuu yidhi ilaahay idaa asaabatum musiiba qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. allahuma ujurnii fii musiibatii, musiibadan igu dhacday ajirkeeda allow isii, wa akhlif lii khayran minhaa, midka khayr badanna iigu bedel. kan waaba tegaye, koo ka fiican oo ka khayr badan ilaahayo markaa iigu bedel. saasaa markaa la rabaa. balse musiibadu mar allaala markay cusub tahayaa la rabaa. markaad ooyso oo meel kasta aad dhacdo oo qof kasta aad u tagtood wax qaban weyso tabar ay ku reebta, alxamdu lilah, inna lilahi qofkaa yeelaysa male.
nebigu wuxuu soo maray naag qabri agteeda ku ooynaysa markaasuu dhahay iska sabir ee meesha ka tag sibi yaraa ka dhintaa qabriga ku jiray ilayka canii bay tiri iga dhaqaaqay tiri kuguma dhicin musiibadii igu dhacday haddii kugu dhicleed adba ma sabri lahaynay ka wadaa ma ogeyn inuu nebigu yahay caliyaa la socdoo lugta gadaal u dhigay oo yidhi war nebiga waa qofkaad la hadlayso way soo orday guriga nebigay timid albaabkiisa waardiyaala ma joogin sala allahu calayhi wasalam intay u tagtay tiri yaa rasuulallah haddaan sabra nebigu wuxuu dhahay asabru cinda sidmati aluula hadda ma lagaa rabo hadaayay ahayd musiibada markay qoyantaha la rabaa laakiin markaad soo oohin bogatay waxna aad soo celin weysay haddaa sabra qofkaa yeelaysa male ajirna markaa ma laha adducaau cinda iqmaadi lmayiti maydka marka loo indhalaabayo wixii loogu ducayn lahaa nebiga abisalama u soo galay allahuma kfir lifulaan biismihi magaciisa sheeg ilaa nebiga yidhi allahuma kfir liabi salama saasuu markaa dhahay warfac darajatahu darajadiisa kor ugu qaad fi lmahdiyiin wa akhlifhu fii caqibihi fi lghaabiriin dadka ka hara ee gadaashiisa ciribtiisana khayr ugu bedel waqfir lana ilaahu annaga noo dembi dhaaf iyo walahu asagaba yaa raba alcaalamiina wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisa u waasici wanawir lahu u iftiimi fiihi qabriga dhexdiisa intaasaa la dhahaa meydka indhahana waa loo laabaa adducaau lilmayiti fi salaati calayhi marka meydka lagu tukanayo salaada wixii markaa loogu ducayn lahaa salaada waa 4 takbiirood takbiirta koowaad faatixadaa lagu akhriyaa takbiirta labaad ayadoo la taagan yahay nebigaa lagu salliyaa takbiirta saddexaad meydkaa loogu duceeyaa waxaad dhahaysaa allahuma kfir lahu ilaahu u dembi dhaaf warxamhu una naxariiso hadday naag tahay allahuma kfir lahaa warxamhaa wacaafihaa waaye nin hadduu yahay allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi ilaahayow cafi wacfu canhu caafimay ka cafi xaggiisa wa akrim nusulahu nusulkiisa iyo soo dhowayntiisii martiqaadkiisa allow karaamney wa wasic oo waasici madkhalahu makaanu gelidiisa waa qabrigee wa aqsilhu bilmaa'i ilaahayow biyo ku dhaq iyo wathalji iyo baraf iyo walbaradi biyo qabow dembiga uga dhaq wanaqihi ka nadiifi min alqataayaa gafafka iyo dembiyaalka kamaa naqayta athawba alabyada min addanasi saad uga nadiifisay ama loogaga nadiifiyo marada cad wasaqda marada cad maraayanka kale lamid ma aha wasaqdii gaarta qofku waa ku xishoodaa banaanka lama soo baxo waa isla markii waa iska dhaqaa allow dembiga saasoo kale uga dhig waayo wa abdilhu ugu bedel daaran daar khayran min daarihi daartiisa ka khayr badan wa ahlan ehel khayran min ahli ehelkiisa ka khayr badan wa zawjan xaas khayran ka khayr badan min zawjii xaaskiisa wa adkhilhu ljannata ilaahayow jannada geli wa aacidhu min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ka ilaali iyo wa cadaabi naari waxaad kaloo dhahaysaa allahuma kfir ilaahu u dhaaf lixayina keena nool wa mayitina keena dhintay wa shaahidina keena goobjooga ah wa ghaa'ibina keena maqan wa saqiirina keena yar wa kabiirina keena weyn wadakarina labkeena ama ninkeena wa unfaana iyo dhadigeena ama naagaheena allaahuma man ilaahayow qofkii axyaytahu aad noolayso mina annaga naga mid ah fa axyihi cala alislaami islaamka ku noolay waman tawafaytahu mina qofkaad oofsato annaga naga mid ahna fatawafahu cala aliimaani iimaanka ku oofso oo ku dil allaahuma laa taxrimna ajrahu ilaahu ajirkiisa ha naga hoojinin walaa tudilana bacdahu gadaashiisana hana dhuminin gadaashiisana ilaahayow hana fidnaynin allaahuma waxaad kaloo dhahaysaa ilaahayow ina fulaan ibnu fulaanin hebel oo ina hebel ah fii dimatika dimadaada ayuu ku jiraa meesha waxaa la khilaafayaa dadka talqiinta akhriya waxay leeyihiin mar allaala marka qofka naftu ay ka baxdo hooyadiisa loogu waca fulaan ibnu maryam fulaan ibnu xawa fulaan ibnu batuula fulaan wax ka jiraa ma laha ina fulaan ibnu fulaanin buu dhahay nebiga fulaan oo fulaan xigkiisa ah waxu dhaaran kara malay leeyihiin ilaa hooyadiis ma ahani waa kidbii iftaar say noqotaba magaca adduunka loogu wici jiray ayaa loogu wacaa qiyaamana fii dimatika dimadaaduu ku jiraa wa xabli jiwaarika jiwaarnimadaada iyo darisnimadaada xarigeeda ayuu ku jiraa faqihi ilaahu ka kori min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa wa cadaabi naari naarta cadaabkeeda wa anta ahlu lwafaa oo fid ayaad ehel u tahay waalxaqi faqfir lahu ilaahu u dembi dhaaf wa anta ahlu lwafaa'i waalxaqi xaqii oo fid ehelkeeda ayaa tahay faqfir lahu ilaahu u dhaaf warxamhu u naxariiso inaka anta algafuuru raxiim ayaa tahee waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma cabduka wabnu ammatika allaahuma
ilaahayow cabduka addoonkaaga wabnu ammatika addoontaada canugeeda ixtaaja wuxuu u baahan yahay ilaa raxmatika naxariistaada wa anta adiga haniyun waa ka kaaftoontaa waadna ka taajirsan tahay can cadaabihi cadaabkiisa ilaahu cadaabkiisa wax uu kuu siyaadinaayo ma jiro waad ka kaaftoontaa waadna dhaafi kartaa in kaana muxsinan hadduu nin fiican yahay fazid fii ixsaani ixsaankiisa u ziyaadi wain kaana musii'an nin xun hadduu yahayna fatajaawaz canhu ilaahay oo ka astur adducaau duco waayo lilfaradi ceelalyowga loogu duceeyo fi salaati calayhi marka lagu tukanaayo faradku waa ilmaha yaryarkaa marka ay dhintaan ila dembi malaha allahuma kfirhu warxamhu la dhihi maayo maxaa la dhahaa allahuma acidhu min cadaabi alqabri ilaahayow ka kori cadaabka qabriga wain qaala hadduu yidhaahdo qofka allahuma ajcalhu ilaahayow uga yeel faradan ceelalyow faradka waxaa la dhahaa xoolaha marka loo wado darka ama ceelka hal qofaa la diraa inta aan xoolaha la wadin ka hor ninkaasaa ceelka usii diyaariyo xawdkii waxyaabaha iyo meeshay fadhiisan lahaayeen iyo biyaha kaasaa sahan ahaan hore loogu sii diraa farad ayaa la yidhaahdaa ilaahu uga dhig mid usii hormaray wa duqran iyo kayd liwaalidayhi labadiisa waalid wa shafiican mid shafeeco oo mujaaban shafeecadiisa la ajiibo uga dhig canuga ka dhintay allaahuma faqil bihi ilaahu ugu cuslay mawaasiinahumaa miisaanyaalkooda waa hooyi aabbee waacdid bihi ilaahayu ku weynay cunuga uga dhintay dartii ujuurahumaa ajriyaalkooda wa alxiqhu bisaalixi almu'miniin mu'miniinta saalixiinta ilaahu waafaji oo haleelsii wajcalhu canuga dhintayna ka yeel fii kafaalati ibraahiim nebi ibraahim kafaaladiisa ilan ilmaha awlaadda saqiiray nebi ibraahim ayaa albaabka jannada ku haaya waqihi biraxmatika naxariistaada ka kori oo cadaaba aljaxiimi waqihi biraxmatika naxariistaada darteeda oga kori cadaab aljaxiimi jaxiima cadaabkeeda waabdilhu daaran khayran min daarihi daartiisa daar ka fiican ugu bedel waahlan khayran min ahlihi ehelkiisa ehel ka fiican ugu bedel allahuma kfir ilaahu dhaaf liaslaafina kuweena tegey wa afraatinaa kuweena hormaray waman sabaqanaa ee intii nooga dhaqday biliimaani iimaanka sida hadduu dhahna faxasano way wanaagsan tahay waxaa kaloo la dhihi karaa allahuma ajcalhu lanaa faradan ilaahu canugaan nooga dhig mid noo hormaroo farad ah wa salafan wa ajaran mid salafa oo naga sii horeeya iyo mid ajir aan ku helnay intaba markaa nooga dhig wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam